waxa garab igu siiyay qofka koowaad waa inankayga aabihii marka labaadna waa asxaabtayda najmo ma ii sharaxi kartaa waxaad ula jeedo inankayga aabihii saxaafow waa ku maqluuba su'aashaas ka gambiya haahey ileen adiguba caqli baad leedahay ma gabadh baa ka khashaafi lahayd ninkeeda inay magaciisa sheegto waa maya barnaamijka aa gudagelin arusinka maxay isku fureen najmo nashaad iyo cawaaladeed daawadayaal barnaamijka oo dhammaystiran ayaan idinku sheegi doonaa balse intaynaan u gudagelin halkan waa channelka Siso Official haddii aad ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena gamleelka fadhi si ay kuu soo gaadho muuqaalada xiisaha badan ee aanu halkan soo galin muuqaalkana daawanaysadna like saar haddaba daawadayaal waxaan anagu idin xaqiijinaynaa oo aanu idin hubnaa in ay si rasmiya u kala tageen oo ay isku fureen lamaanihii fanka ku wada jiray waa najmo nashaad iyo cawaaladeed haddaba daawadayaal caddayn kale uma baahna sidaa kasoo wada arkayseen muuqaalka fiidiyowga hiraantiisii najmo nashaad markii la weydiiyey ee lagu yiri fanka ayaa garab kaa siiyey waxay tiri inankayga aabihii markii lagu yiri maxaad uga jeedaana waxay tiri su-aashaa ka dhaca saxaafow yadu may waayin inay tiraahdo waxa fanka iga siiyey xaajigayga qaaliga ee cawaaladeed balse cawaaladeed iyo najmo nashaad waa ay kale sidoo kale waxa caddayn labaad idiin ah asad xaajiyow markii uu najmo nashaad ku yiri aariyu single way qosashay siday u qoslaysay ayuu asad xaajiye su-aasha dhaafiyey kaliya taa waxay odhan lahayd no anigu single ma ihi balse way isfireen oo imika waa single haddaba daawade yaa ka dambeeyey furniinka najmo nashaad iyo xaajigeedii hore ee cawaaladeed haddaba daawade cawaaladeed ayaa isagu ah nin fanaana oo lejana oo aabihii iyo waalidiintii iyo faamilkooda oo dhani ay yihiin fanaanin islamarkaasina fanka u leh hiddo dheeraada iyo abya oo maxay u odhan weyday waxaan jecelahay inaan la heeso xaajigayga qaaliga ee cawaaladeeda ilaan isaga isqabaan oo ay u bada dhashay abti wax fahan caqligu waa ku sidee haddaba daawade cawaaladeed ayaa najmo nashaad ka soo waday magaalada muqdisho isagoo u soo waday magaalada caasimada Somaliland ee Hargeysa ama hooyga iyo fanka fanaaninta Soomaaliya isagoo halkaasi cawaaladeed ugu kuurgalay sidii uu najmo nashaad uga dhigi lahaa fanaanada caana fanaanad socotay fanaanad ka tagtay haddaba daawadaya cawaaladeed ayaa isagu fankiisa inuu kor u qaado oo uu heeso qurux badan soo qaado wuxuu ka hormariyey inuu xaaskiisa najmo nashaad fankeeda kor u qaado isagoo hiil iyo hoogba u maray inuu kol uu abwaan weyn hees uga soo sameeyo koluu musician weyn u geeyo koluu laxamaysto weyn u geeyo hiil iyo hoo iyo baba ula soo maray sida codka teembada loo saaray isaga ayaa baray sida wax loo laxameeyey isaga ayaa baray daawadayaal bal ila daawada muuqaalkan yar waa kan cawaaladeed oo baraya najmo nashaad sida codka teembada loo saaro iyo ma ku diiday ma doonay ay waa ku diiday kuma raaci karo runtii kuma kici karo daawadayaal waxaan filayaa inaad kasoo wada bogateen muuqaalkan durbaanka la tumaya iyo waxaanay qaadayeen waa codka iyo teembada sida la isugu fadhiisiiyo waa cawaaladeed iyo najmo nashaad waqtigu waa ugu yaraan 3 ilaa 4 sano ka hor waxa uu barayaa qaabka codka iyo muusiga la isku fadhiisiiyo muusiga la garaacayo waa durbaan caadiya codkana way ku wada heesayaan haddaba daawadayaal isagoo hiil iyo hooba la soo garab taagna oo in badan u soo samray inay meel fiican gaadho ayaa maanta markii ay fankeedii socday najmo nashaad wax walba way iska cadin wax beenana ma aha haddaba daawadayaal anigu waxaan arrinka ku tilmaamo garan maaye wiilka fanaanintu waa ifuuloo iga kac ma ka cabanaysaa gaastari ma ka cabanaysaa lafa xanuun sidoo kale ma ka cabanaysaa buurnaan xad dhaaf ah
ma dhibsatay caato oo ma rabtaa inaad miisaankaaga kordhiso ma ka qaaday diiqad caloosha mana rabtaa si dhaqsi ah inaad isaga jarto ma idin haysaa adigii ubadkaaga ama teed xumo ma tahay dhibana la il daran haaraha wejiga finanka wejiga iyo sidoo kale xubta ama agoolka timaha ma tahay ruuxay daashatay Colgate chemical ah oo wax faa'iido lahayn haddaba hadday jawaabtaadu tahay haa waxaan ku haynaa daawooyin laga sameeyay dacar iyo malab saafi ah iyo sidoo kale dhir dabiici ah gastriga waxaan ku haynaa aloe vera gel oo ah cabitaan ka samaysan dacar iyo sidoo kale fields of green lafa xanuunka waxaan ku haynaa Forever Freedom oo ah cabitaan ka samaysan liin macaan iyo dacar la isku daray heat lotion iyo sidoo kale Forever Calcium haddaad ka cabanayso buurnaan xad dhaaf ah ama miisaankaagu aad u badan waxaan ku haynaa C9 oo ah kaniin shiilaya baruurta sidoo kale haddaad doonayso inaad miisaankaaga kordhiso ama isnaaxiso waxaan ku haynaa borotiinno dabiici ah haddaad rabto inaad caloosha iskaga jarto si dabiici ah waxaan ku haynaa alaabo si dabiici ah kaga goynaya haddii aad adigii ubadkaaguba ama teed xumo idin hayso waxaan ku haynaa B-Bolin iyo sidoo kale Forever Kids oo ama teedka kuu furaya dhanka kale alaabta maqaarka hadday tahay haaraha wejiga finanka wejiga iyo agoolka timaha gala waxaan ku haynaa daawooyin dabiici ah oo ka samaysan dacar iyo avocado iyo weliba khudrado la isku daray sidoo kale waxaan ku haynaa Bright Tooth Gel oo ah Colgate dabiici ah kana samaysan dacar haddaba waxay kuu qabanaysaa ilka xanuunka xoqodaha qanjo xanuunka infectionka afka iyo ciridka ku dhaca ilka dhiigga sidoo kale waxay caawisaa ilkaha dhaqaaqay ilkaha suusku galay hana hilmaamin ilkaha waxay ka dhigaysaa ilka cadcad oo ifaya haddaba hore u soo gaadh kala soo xiriir lambarka shaashadda kaaga muuqda meel kastoo aad adduunka joogtana haddaad dalbato waa laguu keenayaa ballanteennu waa daawo dabiici ah oo waxtarkeeda wadata muddaad sugayseen meherad maaraysa mashaakilka maqaarka iyo jidhkiyo miyaad maqasheen Forever Living Product waa shirkad Maraykan oo la aasaasay sanadii 1987 Forever Living Product waxay leedahay beeraha iyo warshadaha ugu waaweyn adduunka ee wax soo saarka dacarta iyo malabka sida dabiiciga ah shirkaddu waxay kaaga shaqaysaa 160 dal waxaana ay soo saartaa 250 badeecadood oo kala duwan agabyada ay soo saarto waxaa ugu muhiimsan qaybaha cabitaanka ka samaysan dacar saafiya iyo qaar lagu daray khudrado kala duwan waxay caawinaysaa dheefshiidka iyo qanshisaarka caloosha faa'iidooyinka cabitaanada 1 calool istaaga gastriga iyo qanshisaarka jidhka oo dhan 2 lafa xanuunka dhabarka jilbaha iyo lafaha oo dhan 3 mid caruurta la siiyo oo ka caawinaysa dheefshiidka caloosha iyo mid u furaysa ama teedka 4 waxay kaloo faa'iido u leedahay infectionka ku dhaca kaadi mareenka iyo caado wareerka waxay kaloo Forever Living Product ku keentay cunto caawiyaal dabiici ah oo nafaqo leh iyo faytamiino jidhku u baahan yahay waxaana laga sameeyay 1 kalluunka iyo macdanta badda ku dhex jirta 2 malabka iyo boqorada shinnida cuntadeeda 3 qayb ka samaysan dhirta dabiiciga ah inteeda waxtarka leh faa'iidooyinka aad ka helaysana